kulanti wanaagsan asxaabteeda qaaliga ah ku soo dhawaada muuqaal cusub oo xalay TikTok ka qabsaday. Muuqaalkani waxa uu ahaa Hakuul oo gaaray 500,000 oo followers. Boqorada Isteelka ayaa si live ah ula dabaaldegtay Hakuul kadib markii ay Muqdisho ku soo laabatay dhawaan. Intii uu dabaaldegga socday, boqorada Isteelka ayaa sheegtay hadal siraha. hadalkaasi gadaal ayaynu ku soo gudbin doonaa aynu ku sii socono sheekada. Boqorada Isteelka iyo Hakuul ayaa live-kii ay ugu dabaaldegayeen farxadda 500,000 lamaanahani waxaa daawanaysay kumanaan kun oo qof oo Soomaali ah oo halkaasi kala socotay habka farxadana halka kale ka daawanayay lana qaybsanayay farxadda iyo waqtiga ay ku jiraan. Boqorada iyo Hakuul ayaa halkan ku wada qaatay jawi aad iyo aad u dheer maadaama ay dhawaan soo kala tageen boqorada iyo Haykal oo boqorada ay mar dhow ku soo laabatay magaalada Muqdisho. ayaa Haykal waxa uu aad ugu faraxsanaa mar labaad inuu si live ah farxadda kala qayb qaadanaysa saaxiibtiisa qaaliga ah ee boqorada Isteelka. Maria ayaa iyada oo ku sugan magaalada Muqdisho si live ah kaga qayb qaadanaysay farxadda 500,000 oo followers-ka ee ku soo biirtay Hakuul. Hakuul waxaa hal mar u sababay inay ku soo biiraan 500,000 oo followers si degdeg ahna uu ku gaaro maadaama maalmahani dambe boqorada Isteelka oo caan ka ah barta TikTok uu muuqaalo la soo sameeyay. Intii live-ka lagu wada jiray, boqorada ayaa sheegtay in haddii ay 1 milyan lagu gaarsiiyo muddo kooban uu Hakuul imaadi doono magaalada Muqdisho uuna kala qayb qaadan doono farxadda milyanka.